Muuqaalkan oo baraha bulshada lagu faafiyay waxaa laga soo duubay ninkan iyo xaaskiisa xilli ay dhex marayeen magaalada Delhi ee caasimadda dalka Hindiya. isla markaasna waxay ku sii jeedeen maxkamadda sare ee Delhi si ay u dhammaystiraan ama ay u saxiixaan kala tagooda ama dhammaadka furiinkooda iyo guurkoodii horeba. balse daqiiqada ka hor inta aysan maxkamadda gaarin, gabadha waxaa loo soo sheegay in aabaheed uu xanuunsaday, xanuunkiisuna uu darsaday. Gabadhii halkii ay maxkamadda ka aadi lahayd waxay u dhaqaaqday inay aabaheed qaado oo ay la tacaasho ay la aado dhankaasi isbitaalka. sidoo kale waxaa fariintu gaartay oo loo sheegay inuu aabihii xanuunsaday ninkii gabadhan qabay oo isaguna kusii wajahnaa halkaasi maxkamadda, balse isaguna halkii uu maxkamadda ka aadi lahaa waa uu soo laabtay oo waxa uu usoo dhaqaaqay dhankaasi isbitaalkii. Markii uu isbitaalka soo gaarayna waxa uu damaanad qaaday dhammaan wax walba oo qarasha uu ku baxaya caafimaadka odayga. Xaaskiisa hore ay kala tegi rabeen oo ah gabadha odayga, markii ay ogaatay intaas waa ay qoyrootay oo isla goobtii ayay ku oyday. Isla isbitaalka dhexdiisana waxay ku jexjexday waraaqadihii maxkamadda iyo waraaqadihii furitaanka oo ay rabeen inay saxiixaan isla maalinkaas. Labadan qofna waxay isguursadeen sanadii 2020. intii xilligaas ka dambeydana waxaa ka dhexeeyay khilaaf aad u dheer oo isjijiida, kaas oo muddo badan soo socday. Khilaafkan muddada badan soo socdayna waxa uu saameyn caafimaad ku yeeshay gabadha aabaheed oo ahaa qofka isbitaalka la geeyey. ugu dambeyn labadoodu waxay isku fahmeen ama isla garteen in la iska cafiyo wax walba oo khilaaf oo hore u dhacay. Qofka kula qaybsada xanuunka iyo dhibka waa qofkaaga. أغاني أسلوبي يا حشرات دعب شدديتا دعب اللوغو كرشو والدكي صور دي ساتايا وانا اجنور دمي